dhammaanteen in galmudug aan dhisano ayaan rabnaa haddii aan ka soo qaado in galmudug ay tahay aqal wadareed u baahan dhismo laakiin qolo waliba qayb aqalkii galmudug lagu dhisi lahaa ay meel ku haysato qolo shamiitadii ayay haysataa qolo dhagaxii ayay haysataa qolana fuundinimadii iyo farsamadii iyo caqligii ayay meel ku haysataa waxaan u baahannahay in qolo waliba lagu soo qanciyo in ay waxeeda la timaado iyadoon qasbanayn si aan aqal aan wada degno oo na deeqa oo galmudug la yiraahdo aan u wada dhisano كمال داهر حسين قوتالي ومد كميدا مشارحين تولولاميا جاقادا حلكا مدحتنمو إمامولكا قلمدو سادالهان قوتالي وحاو كجيرا صفكوري مركال إيغو سامين تيسا سياسة دا يسيفوين كيسا غاركا كمال قوتالي وسياسي المدعا كجيرا سياسة دا صوماليا وحاونو حبين كسو نغضاين تبادان دولديه دالكا صومري إساقو هادبا كالين كومتالي مركا أنيغنو كالين تيسا سياسة كمال قوتالي وسياسي لقبراد معمولي مدهوغان وحاونا لسو شقي دولدي كوميل غاركا هيدا شريف شيخ أحمد isagoo la taliye sare u ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dowladii federaalka ahayd Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu noqday agaasimaha guud ee Villa Soomaaliya hay'ado caalami ah ayuu la soo shaqeeyay isagoo ka ahaa dhanka hoggaanka sidoo kale waxa uu noqday hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir ka hor inta uusan wareejin xilkaas bishii May sanadkan xilligaas uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa xilka madaxtinimo ee Galmudug dadka sida gaarka u garanaya Kamaal Guutaale waxa ay sheegaan inuu yahay siyaasi samafala isla markaana uu dhimriya dadka danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaar dhanka waxbarashada Kamaal Guutaale waa siyaasadiisa ay ku lamaanan tahay tacliin sare isagoona heerarka kala duwan ee waxbarashadiisa ku qaatay dalka iyo dibadiisa waxbarashadiisa hoose dhexe iyo saraba waxa uu ku qaatay magaalada madaxda dalka ee Muqdisho dugsiga Mujammaca Mulqura waxa uu ku qaatay waxbarashada dhexe iyo saraba isagoo 1998kii ilay waxbarashada dugsiga sare kadib waxa uu boqolay dalka dibadiisa isagoo heerarka kala duwan ee jaamacadda ku soo qaatay dalalka Suudaan iyo Malaysia Guutaale ay dad badan oo ka soo jeeda deegaanka aad u soo dhaweeyeen musharaxnimadiisa Galmudug iyagoona u arka qofka ku haboon ee hogaamin kara maanta dadka reer Galmudug oo meesha ugu adag Soomaaliya runtii xagga administrationka iyo maamulka inuu u raadsado madaxweynenimo runtii waa wax adag waa geesinimo waa ugu hambalyeynayna halhayska ahna Galmudug isku dan ah runtii waxay nutsaysaa meesha hamigiisa u yahay Kamaal markuu meesha tago nin hadda baranayo ma Kamaal Daahir Xasan Guutaale qabiil iyo shakhsi iyo deegaan uusan xiriir la lahayn ama uusan aqoon ee Galmudug ka jira ma jiro Kamaal maalintuu tago shaqada hore ka bilaabaya dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa iyana ku sheegaya shakhsiyadda hogaamineed ee ku jirta Kamaal Daahir Xuseen Guutaale waxaan aaminsanahay inuu yahay shakhsi ku haboon inuu badbaadiyo iskuna taago Galmudug kana saaro gablankan siyaasadeed iyo isbarbaryaca ka jira tacliintiisa oo dhan tahay experience kana runtii waxa ugu fiican shaqada inaanad kor kaga soo dhicin wuxuu ka soo bilaabay meesha ugu hooseysa maantana meesha ugu sarreysay u socdaa asagoo markaa marxalad kasta soo maray khibradda noocaasna leh sharax walba marka uu doonayo hoggaan waa inuu dadka uu doonayo inuu hogaamiyo soo bandhiga qorshihiisa maamul iyo waxa ugu horeeya ee uu qabanayo haddaba maxaa saldhig u ah Kamaal Daahir Xuseen Guutaale haddii aan ku guulaysano in aan gurigii u dhisano si caafimaad qabta waa bilowgii dhismaha Galmudug waxaan dhisanaynaa hay'adihii dastuuriga ahaa laakiin si guriga loogu manaafacaado waa in la helaa qalabayn biyogelin koronto iyo dayactir joogto ah haddaba waxaa xaqiiqo ah in dhismaha Galmudug aysan waxba tarayn haddii aan la dejin sharcigii iyo habraacii shaqo la dhisin haykalkii maamul iyo hay'adihii amniga iyo maaliyadda la daadejin awoodda maamul ee caasimadda ilaa heer tuulo la diyaarin kaadirkii shaqada maamulka qaban lahaa la helin dakhliga iyo maalgashiga hawlaha lagu socodsiiyo hiigsigaygu waa Galmudug sidaas ah iyada maskaxdeeda ku sawiran khiyaalkayga ku jirta waxaana aaminsanahay inaan ka dhabayn karo haddii aan garab ka helo dadkayga reer Galmudug Kamaal Daahir Xuseen Guutaale ayaa loolanka ugu adag kala kulmi doona labada musharax ee kala ah Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa siyaasiyiinta Soomaalida ee xildoonka ayaa lagu yaqaan inay yihiin kuwa garabka lagu wado iyadoo ujeedku yahay in cidda garabka ku wada dan gaar ah ka leedahay deegaanka ama dalka hadba musharaxu uu hanqal taagayo inuu hogaamiyo balse Kamaal Guutaale ayaa kaga duwan tahay siyaasiyiinta kale waxaana la aaminsan yahay inuusan haysan garab gudaha ama dibadda ah yahayna
yahayna shakhsi garowsaday isagu inuu tartamo kalsoonina ku qaba in dadka reer galmudug maanta yihiin kuwo og waxa dantooda ah iyo shakhsiga aan ugu imaan fulinta dangaara. Kamaal Daahir Xuseen Guutaale ma yahay siyaasi galmudug gaarsiin kara guul mana tahay xilligii dadka reer galmudug tijaabi lahaayeen Master Guutaale.